بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waa Sidiiq Cabdiqaadir Xuseen madaxa suuq geynta iyo horumarinta businesska adeegga IBS runtii aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno bandhigan socday labadii maalmood shalay iyo maanta oo ah bandhiga bangiyada iyo adeegyada maaliyadeed ee Soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen bangiyada dalka shirkadaha ka shaqeeya adeegyada maaliyadeed oo aan qayb ka nahay ganacsatada Soomaaliyeed bulsho qaybaheeda kala duwan leh oo dhalinyaro rag iyo dumar inta isugu jiro IBS waxay ka mid ahayd ka soo qaybgalayaasha oo halkan ku soo bandhigaya adeegyadooda runtii aad ugu faraxsanahay in aan guudkeena aan dadka ka soo qayb galay aan adeegyadeena ugu sharaxno oo aan tafaasiil dheeraad ah ka siino halkan wax ku soo bandhigayna adeegyada casriga ah ee IBS bixiso oo ugu horeeya adeegana IBS Virtual Card oo runtii ka soo qaybgalayaal badan oo bandhigan imaaday ay ka faa'iideysteen adeeg IBS Virtual Card waa adeeg kaar ah oo casri ah oo u fududeynaya bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada isticmaasha internetka inay si fudud lacagaha internetka lagu baxsho ay u bixiyaan dhalinyaro badan ayaa ka faa'iideysatay sidoo kale halkan ku soo bandhignay adeeggan IBS Global oo ah adeeg casri ah oo u fududeynaya bulshada Soomaaliyeed in si fudud lacagahooda dalka dibadiisa u dirsadaan kana soo dirsadaan waxa ka mid ah adeegyada halkan ku soo bandhignay adeegga IBS Saving Group oo ah adeeg runtii oo aan bulshada Soomaaliyeed u soo kordhinay una fududeynaya dadka sida groupka ah lacagaha u aruursada inay si hab digital lacagahooda u saf gareystaan si guud adeeggeena waa adeeg casri ah oo maaliyadeed oo qofka u fududeynaya in si fudud lacagihiisa ugu manage gareysto haddii ahana lacag bixinta in lacag loo soo diro in lacag dalka dibadiisa looga soo diro in adeegga virtual card-ka oo lacagihiisa internetka ku bixiyo farxad weyn ayay noo ahayd inaan bandhigan aan ka soo qayb galno waxaan u mahadcelinaynaa ka soo qaybgalayaashii guudkan ugu soo booqday ka faa'iideystay adeegyadeena iyo intii soo qaabisay bandhigan intaba waxaan leenahay mahadsanidin aad u mahadsantiin